Asalaamu calaykum dhammaan taageerayaasha Man United meel walba aad dunida ka joogtaan. Waa maalinimo Isniin ah, taariikhduna ku beegan tahay 26 bisha 7 2021. Warbixinta aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiiska Rafael Varane oo guul laga gaaray, waxaana idiin soo jeedin doona anigoo ah Cabdirasaaq Cabdulqaadir Anam iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Maankis. Halkan waa Man United Soomaali. waxaa soo idlaaday heshiiskii Rafael Varane ee u dhaxeeyay kooxaha Real Madrid iyo Manchester United. Warar saakay ka soo baxay saxaafadda Spain qaar ka mid ah ayaa sheegay in Varane uu ahaa xiddigii kaliya aan soo xaadirin xerada tababarka Real Madrid ee Valdebebas, isla markaana dhammaan ciyaaryahanadii kale ay soo xaadireen. Balse waxaa warkaas beeniyay wariyaha caanka ee Fabrizio Romano oo sheegay in Varane uu soo xaadiray saakay tababarka kooxda maadaama uu ixtiraam weyn u hayo kooxda iyo shaqaalaheeda, misna uusan diyaar u ahayn in uu xumeeyo xiriirka uu la leeyahay kooxda iyo saaxiibadiisa, balse go'aankiisa ah in uu ka tago Real Madrid kuna biiro kooxda Man United uusan waxba iska bedelin. saacadihii ugu dambeeyay Man United ayaa horumar fiican ka sameysay wadahadaladii ay kula jirtay kooxda Real Madrid. Labada koox ayaana ka heshiiyay wax walba oo ku gidaaman saxiixa xiddigan, sida uu sheegay wariyaha Fabrizio Romano. Qiimaha heshiiskaas ayaa la sheegay inuu ku kacayo 45 ilaa 50 milyan oo euro. Rafael Varane ayaa haatan isku diyaarinaya in uu u soo duulo magaalada Manchester si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda. Xiddiga ku guuleystay 4 jeer ee tartanka kooxaha Yurub ayaa jecel weyn ka helay macalinka kooxda Man United, Ole Gunnar Solskjaer, oo ka dhigay bartilmaameedkiisa koowaad ee suuqa kala iibsiga dhanka daafaca. Ole Gunnar Solskjaer ayaa raadinaya daafac tayo leh oo khibrad badan oo uu kula lamaaneeyo daafac reer England ee Harry Maguire, kuwaasoo udub dhexaad u noqon doona daafac Red Devils, sidoo kalena doonaya inuu dhiso koox diyaar u ah inay u tartanto hanashada horyaalka Premier League iyo koobab kale ee ugu horeeyaan UEFA Champions League. Varane ayaa muujiyay tayadiisa daafacnimo isagoona horumariyay qaab ciyaareedkiisa, taasoo uu tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane uu ku tilmaamay mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan horyaalka Spain iyo dunidaba. Xiddigan ayaa ku guuleystay 20 koob xirfadiisa kubadda cagta, isagoona ka soo muuqday 14 finaal oo waaweyn, kuwaasi oo ku wada guuleystay dhammaantood. Waana sababta ugu weyn United ay ugu daba dhimatay xiddigan. isku xirka daafaca dhexe ayaa sabab weyn u ahaa walaaca United, iyadoo Maguire uu u baahan yahay daafac xawaare sare leh oo uu la ciyaaro si uu u daboolo xawaare la'aantiisa, taasoo uu ka caawin karo daafac sida Varane oo kale oo ka mid ah mid ka mid ah daafacyada ugu orodka badan caalamka. ugu dambeyn kooxda ayaa goor hore sii xaqiijisay saxiixa ciyaaryahankii Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, kaasoo ay ku soo qaadatay adduun dhan 73 milyan oo pound oo u dhiganta 85 milyan oo euro, iyo waliba goolhaye Tom Heaton isana oo beeca horta kaga soo biiray kooxda Aston Villa xagaagan. tayada Rafael Varane iyo guulaha uu soo gaaray xiddigan ma aan wax laga sheekayn karo. Waxaan u rajaynaynaa in uu xasilo daafac United, misna uu qayb weyn ka qaato guulaha mustaqbalka dhow ee kooxda. Waxaan u rajaynayaa dhammaan taageerayaasha Manchester United meel kasta ay joogaan in uu noqon doono xagaagan cusub, mid qurux badan, misna guul ku soo ilaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.